maxkamadda gobolka Banaadir oo ku dhawaaqday in xuriyadiisa ay u soo celisay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in maxkamadda uu u gudbinayo dacwad ka dhan ah dadkii weeraray gurigiisa. golaha iskaashiga dawlad goboleedyada oo ka digay in la caburiyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dawladda. faahfaahin ka soo bixaysa dagaal buraha galgala ee gobolka Bari ku dhex maray ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab. sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay inuu isku soo dhiibay maamulka Koonfur Galbeed. dagaal Al-Shabaab iyo ciidamada Jubbaland ku dhex maray gobolka Gado. ra'iisul wasaare ku-xigeenka Britain oo shaqada looga eriyay arrimo la xiriira musuqmaasuq iyo askari kale oo Kuuriyada Waqooyi ka goostay. mudana wariye noo sheeg qalabka ugu casrisan uguna tayada badan ee caalamka shirkadda soo saarta. waa kambaniga Turkiga ah ee la yiraahdo Beko. talo Soomaali ma soo gaaray? ha uu soo gaaray oo waxa uu wakiilaa Al-Kawthar General Trading Company. door wanaagsan waa khamiis 22 bisha 12 sanada 2017 ku soo dhawaada warka duhurnimo idaacada Risaale oo faahfaahsan. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqday in xuriyadiisa ay dib ugu soo celisay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qaab damiinaha xalay ay ku sii daayeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada iyo odayaal dhaqameed. waxaana dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo markii uu dhacay xukunka maxkamadda kadib banaanka maxkamadda kula hadlay warbaahinta uu sheegay in dacwad uu ku raadsanayo xuquuqdiisa uu u gudbinayo maxkamadda. warkan waxay noo hayaa Cabdirashiid Dubad. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa duhurnimadii maanta ku dhawaaqday in wax dembi ah lagu waayay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kadib markii saakay maxkamaddu ay u fariisatay kiiskii loo heystay siyaasigaasi. go'aanka maxkamadda ay ku dhawaaqaysay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Buqaari, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka uu ka mid yahay xildhibaan Mahad Salaad Cabdi Qaybdiid iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka. sidoo kale waxaa ku sugnaa goobta xukunka uu ka dhacayay xeerlaaliye ku-xigeenka qaranka Maxamed Xasan iyo sidoo kale dadweyne u soo daabasho tagay xukunka maxkamadda. gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Awees Cabdilaahi oo ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ayaa sheegay in wax dembi ah uusan lahayn Cabdiraxmaan Cabdishakuur markii horena aanan lagu soo xirin waaran maxkamadeed. sidoo kale wuxuu sheegay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir wixii hadda ka dambeeya Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu yahay muwaadin xur ah magaaladana meesha uu doono ka mari karo. maxkamaddu markay aragtay aayadda 27 ee suuratu al-mulk maxkamaddu markay aragtay qodobka 7aad faqradiisa labaad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 7 iyo 13 ee isla xeerkaas. maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda. maxkamaddu waxay xorriyadiisii u soo celisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ina Maka Xasan Xarani 49 jir ah ku dhashay Buulabarto maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed. maxkamaddu waa loo xiran. ku-xigeenka qaranka Soomaaliya Maxamed Xasan ayaa maxkamadda ka dalbaday in kiiskan ay ka qaadato racfaan, balse go'aankaas maxkamadda ayaa ka diiday waxaana ay sheegtay dacwadan inay soo xirantay oo naqasho dambe aysan lahayn. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo la soo eedeeyay ayaa isaguna kadib go'aanka waxa uu la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay in wixii hadda ka dambeeya isaga uu furi doono qaybta labaad ee dacwadda isaga oo tilmaamay in uu raadsan doono hanti uu sheegay in laga dhacay isaga oo sidoo kale u mahad celiyay dadkii sida weyn uga garab shaqeynayay xilligii uu isaga xirnaa. dadka saxaafadda iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan ka taageeray keiskayga iyo arrintayga sida gardarrada iyo dulmiga laygu soo weeraray hantideedii lagu burburiyey istaafkaygii lagu laayay uga dhiidhiyey waa u mahad celinayaa. dacwada qaybteedii horaa dhammaatay qaybtii dambena way furmi doontaa oo aniga xaqa aan lahaa ciddii ugu soo been abuuratana beenteedii waa la caddeeyey. waxaan ugu baaqayaa madaxda dalka haysataa waa laga gudbay xilligii qori caaradiis wax lagu maquunayo. dalkaana xilli dib loo celiyo ma joogo. dastuurka iyo sharciga ka taliya labada guddoon ee baarlamaanka iyo aqalka sare waxaan ugu baaqayaa
in ay sharciga la tiigsadaan cid walba oo sharciga ka weynaata xildhibaanada baarlamaankana waxaan ugu baaqayaa dalka waxaa lagu wada joogi karaa waa sharci. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa 18 bishan December waxaa gacanta ku dhigay ciidamada nabad sugidda Soomaaliya kadib markii weerar dhiig ku daatay lagu qaaday hoygiisa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uu ka degan yahay xilli saqdhexe ah. dhinaca kale golaha iskaashiga dowlad goboleedyada dalka ayaa waxa ay ka digeen in la caburiyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda. Axmed Tifo Xasan ayaa faafahinaya. golaha iskaashiga dowlad goboleedyada qoraal ay soo saareen waxay kaga hadleen sii deyntii xalay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kaasoo habeenkii 18 bishan lagu guda jiro lagu soo xiray gurigiisa kadib weerar ay ku qaadeen ciidamada ammaanka. golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa ugu horeyn tacsi u diray ehelada dadkii ku geeriyooday howlgalkaas waxa uuna golaha sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay uu isha ku hayay xiisada siyaasadeed iyo midda amni ee kasoo cusboonaatay magaalada Muqdisho kuwaasoo ay sheegeen in haddii aan xal siyaasadeed oo degdeg ah laga gaarin saameyn xoogan ku yeelan karto deganaanshaha iyo xasilloonida dalka. golaha ayaa waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan sii deynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay ku tilmaameen sii deyn shuruudaysan iyaga oo ka digay inaan dembi laga dhigin kala aragtiduwanaanta siyaasadeed iyadoo la beegsanayo siyaasiyiinta mucaaradka ah. waxa ay ka digeen in xoog ciidan lagu xasilin khilaafaadka siyaasiga ah iyadoo oo xusuusiyey dowladda Soomaaliya in dalku u nugul yahay wax walba sidaas darteedna wada hadal lagu xaliyo wax walba. sidoo kale ciidamada ayaa waxa ay u soo jeediyeen inaysan ku milmin siyaasadda ciidamada nabad sugidda iyo kuwa xooga dalkana waxa ay kula taliyeen inaan loo isticmaalin arrimaha madaniga ah ee booliiska loogu talagalay. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa waxaa xalay saqdii dhexe laga sii daayay xarunta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA kadib wada hadallo saacado badan qaatay oo tan iyo shalay galab ka soconayay magaalada Muqdisho. dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland waxay sheegayaan in Cabdiraxmaan Xaaji oo dabacasir ku magac dheer oo si weyn looga yaqaan baraha bulshada laga sii daayay xabsi uu ku xirnaa oo ku yaala magaalada Hargeysa. sideesmada ayaa waxaa la sheegayaa inay ka dambeysay wada hadal qaybo ka mid ah waxgaradka deegaanada Soomaaliland ay la galeen hay'adaha amniga ee Soomaaliland in xabsiga laga sii daayo. dabacasir ayaa axadii aan ka soo gudubnay waxaa lagu xiray magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland xilli uu barnaamij live ah ka qabanayay barta uu Facebook ku leeyahay kuwaas oo uu dhaleeceen iyo dhaliilba isugu daray madaxweynaha cusub ee maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo qaar ka mid ah qabaa'ilka deegaanada Soomaaliland. waxaa laanta socdaalka ee maamulka Soomaaliland isla maanta ay amartay in si degdeg ah oo uga baxo deegaanada Soomaaliland Cabdiraxmaan Xaaji dabacasir oo la xiray axadii ayna ka soo gudubnay balse maanta ay sii daayeen booliiska Soomaaliland. sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu isku soo dhiibay maamulka Koonfur Galbeed. Cali Xasan Cali ayaa faafahinaya. wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu isku soo dhiibay sargaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. sargaalkan Shabaab ka tirsanaa oo lagu magacaabo Macaan Cabdiraxmaan iskuna soo dhiibay ciidanka Koonfur Galbeed ayaa hadda waxaa gacanta ku haya taliyaha booliska Koonfur Galbeed taliyaha booliska gobolka Baay Korneel Cabdiraxmaan Aadan. sargaalkan Shabaab ka tirsanaa ayaa ka yimid deegaanka 20 jirow oo ka tirsan gobolka Baay wuxuuna markii uu ka soo tagayay halkaasi uu ku soo baxay inuu soo fiirsanayo beer uu ku leeyahay magaalada Baydhabo. tan iyo markii uu deegaanada Koonfur Galbeed uu gaaray Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ayaa waxaa jirtay inay isa soo dhiibayeen xubno ka tirsan Shabaab. warar soo baxaya ayaa sheegaya in xubnaha Shabaab ka tirsan uu Roobo uu ku cadaadiyay inay soo dhiibaan. dhinaca kalena waxa ay faahfaahin ka soo baxaysaa dagaal buraha galgala ee gobolka Bari ku dhex maray ciidamada maamulka Puntland iyo ururka Shabaab. Ubax Maxamed Nuur ayaa faahfaahinaysa.
ciidamada ammaanka ee maamulka Puntland gaar ahaan kuwa BSF-ta ayaa maalmahan howlgalo ballaaran oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab waxay ka wadeen buuraleyda deegaanada Martishoon, Kariin, Xagarood, Mariidle iyo Buuraha Calmadow halkaas oo ay saldhigyo ku leeyihiin ururka Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamada maamulka Puntland ee howlgalkan horkacaya ayaa waxay sheegeen intii uu howlgalkan socday inay ku dileen 20 dagaalame oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sidoo kale saraakiisha ayaa waxay ka dacsiyadeeyeen geerida 2 sarkaal oo ciidanka BSF-ta kaga geeriyooday miina shalay lagula kacay wadada u dhaxaysay Martishoon iyo Kalkala taasoo ay la eegteen ururka Al-Shabaab. howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ciidamada BSF-ta ee Puntland ay wadaan ayay saraakiishu sheegeen inay sii socon doonaan ilaa Al-Shabaab laga soo afjarayo lagana xureynayo Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Shalay ayay ahayd markii qarax jidkal ah oo nuuciisu uu ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa gaari cabdibile ah oo ay wadeen ciidamada BIS-ta ee Puntland lagu leeyahay duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Afhayeen u hadla ururka Al-Shabaab ayaa sheegay qaraxaasi inay ka dambeeyeen rag ka tirsan Shabaab gaar ahaan kuwa ku sugan deegaanada Puntland waxaana uu tilmaamay qaraxaasi inay ku dileen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka Puntland. warkaas doornimo waxay kaga imaanaya idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka waddanka Britain ayaa shaqada looga eriyay arrimo la xiriira musuqmaasuq iyo marin habaabin. Diamond Green oo ka mid ah xulafada ay isugu dhow yihiin Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa shaqada Ra'iisul Wasaare ku-xigeenimada loogaga eriyay kadib markii lagu helay in uu ka tallaabsaday anshaxa golaha wasiirada iyo sidoo kale arrimo la xiriira musuqmaasuq oo ilaa hadda si rasmi ah loo cadeyn. waxaa la weydiistay in uu iscasilo kadib markii lagu helay in uu been iyo hadallo marin habaabin ah ka sheegay. waxa uu ka ogyahay eedaha sheegaya in kombiyuutarka xafiiska laga helay muuqaalo galmo ah sanadkii 2008. waxaa kale oo uu raaligelin ka bixiyay in uu Geet Maltin ula dhaqmay si aysan raali ka ahayn sanadkii 2015. Laura Cresben ayaa sheegtay in ay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka shaqada laga eriyay ay uu ku sameeyay falal xadgudub ah. Tifaftiraha arrimaha siyaasadda ee wakaalada wararka AFP ayaa sheegaya in rafiiqan ka baxay garabka Theresa May uu Ra'iisul Wasaare ka dhigay mid ka mid ah cidlo uu Ra'iisul Wasaaraha waddanka Britain ay taagan tahay taasoo muujinaysa in ay hadda beelaha u noqonayso weerar mucaaradka kaga imaanaya xisbiyada ka dhisan waddankaas ee kasoo horjeeda xisbiga talada ka haya dalka Britain. Green oo ah 60 sano jir ahaana ku-xigeenkii Ra'iisul Wasaaraha ayaa noqonaya qofkii saddexaad ee golaha wasiirada ka tirsanaa ee iscasila muddo 2 bilood gudahood ah. Major Fallon iyo sidoo kale Priti Patel ayaa hore isku casilay bishii November. May oo war qoraal ah ka soo saartay arrintan ayaa sheegtay inay aad uga xumaatay xafiiska uu baneeyay Green balse waxay intaasi ku sii dartay in ficilkiisu uu ka hoos maray hab dhaqankii laga filayay golaha wasiirada. waxaa ku socday baaritaan ku aadan eedeemo sheegaya dabci aan habbooneyn oo uu ku wajahayay haweenka kala shaqeeya xafiiska iyo sidoo kale gabar saxafiyad ahayd oo waraysi ugu timid. waxaana sidoo kale la sheegay in uu ku dhaqmay falal musuqmaasuq ah kuwaas oo intuu xafiiska taladiisa hayay ay ku soo baxeen. waxa uu sidoo kale diiday in uu ku soo dejisto ama uu ku daawado muuqaalo galmo ah kombiyuutarka laga qaaday xafiiskiisa 2008 taas oo cadeemo la helay ay muujinayaan in kombiyuutarkiisa laga helay. laakiin warbixin rasmi ah oo xafiiska golaha wasiirada ka soo baxay ayaa lagu sheegay in xogta uu dadka la wadaagay ay ahayd mid aan xaqiiq ahayn uuna jabiyay anshixii golaha wasiirada ee Britain. warkii doornimo oo idinka gimaanay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho doornimada waan naga intaa. warkan cidda uu sheego waxay mar kale dib uga heli karaan radiorisala.com. Ikram Clinic Center